sanadkii hore 2019 bishii sagaalaad 22keedii waxa goobtani ka dhacday dhacdo musiibo ah oo dunida dhan wada gaadhay. hooyadani hadda idin muuqata waxay goobtani ku weeday 3 caruur ah oo ay dhashay isla markaana ku gubtay hoygii ay deganeed oo halkani ku yaalay. wixii intaasi ka dambeeyay walaalo muxsiniin ah oo isxilqaamay ayaa waxay isku abaabuleen in mar kale hoy loo dhiso, waxayna caawimo kala duwan ka heshay dhammaanba walaalo muxsiniin oo ku kala nool daafaha dunida, isla markaana u soo dhisay hoygani haadan aan dhex taagannahay. waxaanay mar kale hooyadani dalbanaysaa in la soo caawiyo isla markaana soo dhammaystiro baahiyaha kala duwan ay ka tabanayso hoygani ay degan tahay. mid ka mid ah dadka ugu dhow isla markaana ay jaarka yihiin ayaa waxay bulshada muslimiinta ugu baaqaysaa inay soo caawiyaan. ay 3 caruuri kaga gubteen gurigii hooyadeed. guri hooy ay iyadu lahayd ma ahayn, marka hoygii hooyadeed bay hayd. hadda hoyga aan dhex joogna ayaa loo iibiyay, jagada loona dhisay, loo hagaajiyay. ummaddu intii ay taraysay intaasay noqdeen. waxa wax gacan hayo oo gacan qabtay ururka tawfiiq baa gacan qabtay, gaar ahaan maama Basra Jirde. imika waxa ay tiri anigu wixii aan hanti helay intaasay noqotay, jaga iyo guriba. imika wixii kale ee aad baaq u dirsanayso ummadiina muslimiinta ah u dirso. ummadda muslimiinta ah waxaan ka codsanaynaa cidii dar ilaahay wax ula baxaysa ee wax caawin karaysa inay soo caawiso maamada dhibaataysan ee murugaysan. hadda waa xaamilo, hoy kira ay gashaa, ma awoodo kiradii. bariiskeegii dirqi bay ku heshaa, maalna way heshaa maalna way weyda. ninkeegii sida saygeegii oo kale waa ka bilaa camal, maanta ma haya. isaguna meel uu fadhiisto uu camal ku siisto uu yiraahdo gabadhaydii halkaa ii fadhiiso waan ku tarayaaye. ugu dhacday iyadoo awlaadeedii bariiska u doonaysa, imikana iyada oo aan doonan karaynin bariis iyo meel ay wax ku qabsato ayaan ummadda muslimiinta uga codsanaynaa. ilaahay dartii aniga oo jaarnimo iyo ilaahay dartii ugu hadlaya ayaan leeyahay wixii islaam ee wax caawin karayaaba inuu soo caawiyo walaalaha iyaga muslimiinta ah. muslimiinta meel kastay joogaan inaan ka codsado inay soo caawiyaan. hooyadii 3 ubadii ka gubteen baan ahay. maanta dadka meel kasta waa laga soo caawiyay. maantana waxaan doonayaa walaalahaygii muslimiinta inay soo caawiyaan, soo gacan qabtaan. imikana maqsin kiraan ku jira, awood aan u leeyahay ku bixiya ma jirto. marka walaalahayga muslimiinta inay soo caawiyaan guriga soo dhameystir inay soo caawiyaan inta ay hadhay dhameystiran dir ilaahay. waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka badda cas 24 TV, magaalada Boorama.